وهردع برنامج كي حيسها بنا مرتدى الصومالي كبل وحنا عبد الله فرح نور يريسو وحنا إذا كلا سو هاللي برتمها مقالة كابسون دلكني كونفور أفريقيا برنامج كمرتدى الصومالي كبل تضبعت كان أينو إذا كوجسو قد بنينا warbixinna xiiso badan oo la xiriira dhalinyaro Soomaali ah oo guursada haween koonfur Afrika u dhashay maxaa sababay ayadoo la heli kara haween Soomaali ah oo ku sugan dalkani koonfur Afrika inay guursadaan haween u dhashay dalka koonfur Afrika waraysiyo xiiso badan oo arinta la xiriira ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbinaynaa gudaha barnaamijka ayadoo sidoo kale aynu fursad ku helnay inay ka qayb galaan barnaamijkan haweenka Soomaalida ee ku nool dalka koonfur Afrika maxayse ka yiraahdeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur Afrika oo sii badanaya isla markaana guursanaya haween u dhashay dalka koonfur Afrika iyo jacaylka gabdhaha South Africaanka iyo gabdhaha Soomaalida yaa ku wanaagsan oo dhanka iyo jacaylka maadaama aad Soomaali aad ka dhalato gabdhaha Soomaalidu aad u taqaano hadana gabdhaha koonfur Afrikaanka aad u taqaano xaaskaaga ay tahay gabar South African ah dhanka iyo jacaylka aad ugu wanaagsan xaqiiqdii jacaal markii loo dumar horta waa dumar hadba waa sida adiga ka dhigato laakiin ana ahaan waxaan isiri amiir South Africaanka jacaylka aad u yaqaanaan sababta jirta waxay tahay maanta gabadha Soomaaliga wax un bay kugu jeclaanaysaa waxay ahaataba ama quruxa kugu jeclaato ama isteela kugu jeclaato ama jeebka ku saraha lagu jeclaado jeebka haduu dhamaado maxaa la isku sheegayaa dhibka jiraakaas laakiin tan waxay aaminsan tahay shalay inaad boorkan ka soo gudubtay adoo waxba haysanoo qaawan aad timid maanta aad wadankii wax ku abuurtay birina macnaha aaminsan tahay haduu maanta oo xoogaha jeebkiis daba maray afkii gacanta isla waay biri dib u soo ragaal celin karaa ruucadaaga soo ragaal celiyo marka dib waa roo soo ragaal taasi aaminsan yihiin saas darteed oo macnaha xagga jacaylka ama ay ku fiican yihiin ana ahaan waatahay waan gartay sida caadada gabdhaha Soomaalida markii la guursanayo waxaa jira dhaqan soo jireen ah in gabadhii la doonto oo Soomaali la bixiyo tolku wada kulmo oo maaragtay la isku wada yimaad halkan qofkii u baahday inuu gabar South African ah guursado qaabkee loo maareynaya halkee wax laga bilaabaya ma Suuriya hadii jirto qaabkee u qaataan imise dhantahay warbixin arinta aad bay muhiim u ahayd dadka in daawanaya hadii aad u faahfaahiso I meet Somalian people in Kailicha, Cape Town, Kailicha. So I met the auntie of my boyfriend, the boyfriend of Somalian. So they haven't told me about Islam, but when I saw her wearing Islam clothes, I asked and they told me what's going on about her. And then I liked the way she was wearing. I mean, she was a respectful woman. It was very good on her, hiding her body from other men. So from that time, I started loving Islam and I became Muslim. Alhamdulillah, after 3 months, I got married to my boyfriend that I had. And he treated me very well. And I saw that Somalian people is the only people who can be my family, since I don't have any family around. And when I divorced with him, I still didn't get any problem. I came to other sisters of Somalians, same like Safio. She's the first person I met here who treated me like my own sister. Whenever I'm crying, she's always with me. So that's why I like Islam and Somalian people. Okay, waxaa sababay gabdhaha South Africa qaar oo waxa ku jiro muslim ah oo jecel inay guursadaan ragga Soomaaliyeed marka waxay ku leeyeen aniga muslim baan ahay inaan guursado ragga Soomaaliyeed ayaan jecelahay sidaba ruqiya aad ku arki doontaan insha Allah inta badan waxa dhaca Soomaalida sideedaba isma aaminayso waxa lagu leeyahay marka dadka xog wareysatid oo saan maxaa loo yeelayaa inta uu ku gaar amal saasa guurka qaali looga dhig
waxaa uga wiilasha Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inay iska daayaan gabdhaha ajaanibta waxaad Soomaalidu waxay dhahdaa waxaad taqaanid guurso waxaad taqaanid ha dhalaan gabar Soomaaliyeed hadaa guursato cunug Soomaaliyeed ee dhalaysaa hal iska daayaa leeyahay ajaanibta waxaan kaloo jecelahay inaan ku weydiiyo ku saabsan horeysaygii hore waad kala tagteen maxaa u sabab ahaa in qoyskiina uu burburo maadaama dhalasho aan ka kala soo jeedaan laba dal ma isfahan darro dhanka iyo luqadda ma burburisay maxaa burburiyaa isleedahay maxaa sabab u ahaa markaa sabab waxaa waaye familkiis waaye hooyadiis she keep on calling him asking him come back Somalia gabeeraa ku haya oo maxaa dhahay abtigaaga